السلام عليكم kusoo dhawaada walaalayaal mar kale insha allah tacaala janaalkeena theory-ga waxaan sharxi doonaa maanta saddex su-aal oo khusaysa wadooyinka iyo in haalan insha allah iyo in haalan amaba baasgareyn hadduu ilaahay idmo bismillah labadan dhinac ama labadan sawir waxaan ku aragnaa autoweg waddo loo yaqaana autoweg oo ah waddo orodkeeda ugu badan ama maximal uu yahay 100 kilomitir saacadii ama ugu yaraan inaa 50 ku socoto saacadii marka inta u dhaxaysa 50 ilaa 100 waa lagu ogolyahay insha Allah laakiin 50 ka yar iyo 100 ka badan lama ogola so dhanka bidix waxaa aragnaa in ay tahay autoweg waxaad ku garan kartaa boorkaas oo ah waa bluega oo haddana ku sawiran waa baabuurka haddana dhexda waddada dhexdeeda waxaad aragtaa waa diilimo oo ama riigo oo caddaan ah dhexdana ku sii leh mid cagaaran oo haddana isku xiran so waxaa la yidhi autoweg met onderbreekstreep autoweg met onderbrookstreep sorry autoweg met waa doorgetrokken streep autoweg met doorgetrokken streep yacni waa waddo autoweg oo haddana waa diilnimada isku xiran wadata macnaheedu waxay tahay haddii aad u baahato wax inhaalin ah inaadan samayn karin inhaalin waxaa loo yaqaanaa hadduu ilaahay idmo in gaari adoo dhanka midig saaran oo gaari kaa horeeyo oo aad dhibsatay maadaama uu si tartiib ah u socdo inaad garab dhaafto dhanka bidixa ka gasho aad dhaafto so halkan maxaa yeelay waxaa kuu diidaya labada streep oo haddana isku xiran macquul maaha marka insha allah haddii lagu dhaho marka halkan inhaalin ma ku samayn kartaa waa maya laakiin midta labaad oo dhanka midig ah taas op deze weg mag je inhalen waddadani inhalen waa la ogol yahay maxaa yeelay waxay leedahay autoweg met onderbroken streep yacni hadduu ilaahay idmo waxay leedahay waa diilnimo caddaan ah oo googo'on so marka daaruun ogolaansho waa leedahay in haddii dhanka midig in badan yacni waddooyinka Europe waxaa looga socda dhanka midig so haddii aad dhanka midig ku socoto oo gaari kaa horeeyo oo gaarigaa dhibsatay amaba adiga aad qabto waa maxaa loo yaqaanaa aad qabto dhaqso so marka in aad dhanka bidix ka gasho dhaafto oo dhanka midig kusoo laabato waa lagu ogolyahay maxaa yeelay streebyada caddaanka ah way gogo'an yihiin insha allah so su-aalaha kaaga iman kara waxay tahay su-aasha hoos taala haddii labada sawir isku kaag dhigo emailka citybasi kunt u de fracht auto inhalen xaaladee ayaa lagu ogol yahay ama waad kartaa in aad gaari fracht auto matalan waa forbelt dhanka midig iyo dhanka bidixba waxaa yacni lagu hordhigayaa adiga oo gaari wata iyo gaari weyn oo ka horeeyo lorry ka horeeya so marka waxaa lagu leeyahay marka xaaladee gaariga weyn aad ku dhaafi kartaa halkani so xaaladda aaga ah ama sawirka dhanka bidix yaal maya ay noqonaysaa haddii ay taas tahay nay waay so marka waxaa lagaa rabaa midaas waa a tan kaletana waa b so marka waxaa laga doonayaa marka xaaladda b-ga ah in aad ku dhaafi karto macnaa farqta autoga yacni inaad haddii aad rabto in aad baasgarayso waa lagu ogol yahay midda b-da insha allah tacaala marka daaruun si fiican iskaga ilaaliya wax walba oo yani ka dhacaya waddada iyo sidoo kalete waa calaamadaha waddada inaad adna aad fahamsan tahay ma aad fiiriso waa muhiim su-aasha iyo sidoo kalete maxaa laamiga ku yaala inaad iska ogaato waa aad muhiim ayuu tahay insha allah tacaala marka muhiimadda waxay tahay insha allah tacaala in aad sawirka su-aasha iyo fahamkaadana aad isku darsato hadduu ilaahay idmo haddii aadan sidaasi aadan u feejignaan waxaa dhici karaa in su-aasha adigoo aqaan ina khalado inaad feejignaato su-aasha sawirka boorka wax walba inaad iska eegto waa muhiim fadlan insha allah tacaala su-aasha kale ku xigi doonta waxay ahaan doontaa insha allah aad arki karto
adoo isla wadadii taagan وwilt hier met 100 kilometer per uur inhalen mag dat yacni markaas waxaan ka hadlaynaa insha allah tan bayda oo keliya tan aada kuma jirto haddii lagu dhaho meeshaan yacni labada taa kasoo qabo haddii lagu dhaho meeshaan 100 kilometer ayaa doonaysa inaad gaari ka horeeyaad ku dhaafto wadada 100 waa la ogol yahay muhiimka waxay tahay inhalen ma la ogol yahay yacni baasgarayn ma la ogol yahay haddii aad joogto midab aada ah oo ay labada calaamadood cad ah oo cadaanka ah ay isku xiran yihiin aad joogto su-aasha waxay noqonaysaa mar walba nay haddii laakiin ay tahay wadada midda waa calaamadaha oo cadaanka ah aad taagan tahay taasi waxay noqonaysaa yeah because inhalen waa lagu ogol yahay sidoo kaleete mid la mid ah su-aasha xigta isna waxay leedahay kunt u hier de vrachtauto met 100 kilometer per uur inhalen yacni macna ma awoodaa in gaariga weyn ama looriga 100 kilometer inaad ku baasgarayso adoo taagan midda bayda insha allah tacaala oo haddana waxay leedahay waa streebyada cadaanka ah oo gogoon taa mar walbo ama gaari weyn ama gaari ha ahaado inhalen waa lagu ogol yahay haddii macquul tahay so saddexda su-aal ayaa in badan soo noqnoqda waana muhiim inaad fahansan tahay insha allah tacaala waxaan u gudbaynaa su-aasha xigta amaba waa boorka xiga hadduu la haydmo ama calaamada xigta wadada aaga ah waxaa aragtaa laba strabe oo dhexda ah dane labada strabe oo dhexda ah taasoo haddana isku xiran sidoo kaleeto wadda 80 ah weeyaan wadda 80 ah weeyaan oo aan inhalen lagu ogoleen haddaad fiiriso labada geesood waxay leeyihiin strabeya cadaan ah oo gogoon macnaheedu waxay tahay dhankaas wax kaleeto waad ka filan kartaa sida mooto amaba waa baaskiil laakiin kii hore oo autobeka ahaa labada gees waxay ka lahaayeen hadduu ilaahay idmo strabeya isku xiran oo ah inaadan cidna aadan ka filinin inay kaa soo galaan sida baaskiil ama maxaa ku yidhahdaa mooto kaleete iyo bahasha loo yaqaano waa cagacagafta hadduu ilaahay idmo laakiin midkani labada geesood yacni waa strabeka waa mid gogoon macnaheedu waxay ka mid tahay in labada geesood aad ka filayso gaadiidkaaga imaada sida baaskiil mooto iyo tractorka asna waa si lamid ah sida hore riigada oo dhexda ku taal mid gogoon ma aha makhiinid inhalen halkan in gaari aad ku garab dhaafto ama aad ka hormarto laguma ogola midda xigta waa mid la mid ah waa 80 idana laakiin halkaasi in aad gaari ku garab dhaafto waa lagu ogolyahay maxaa yeelay labada riigo ama labada strabe oo cadaanka ah oo dhexda ku yaal way gogo'on yihiin so marka inhalenka waa la ogolyahay waa makhwel sidoo kaleete labada geesoodna waxay ka leedahay strabeya gogo'on oo aadna macquulay tahay inaad ka filato wax kale oo aanan ahayn gaari orodkan halkan waa 80 insha allah tacaala ama xawaaraha waa 80 ugu badnaan su-aasha xigta waxay noqon doontaa midan ama sabirka xiga wuxuu noqon doonaa midkan oo ah laba riigo ama laba strabe oo cadaan ah oo geesaha aad ku aragto oo gogoon wadadan dadka inta badan waxa macquul inay sadahaan waa wadda 60 ah laakiin haddii aan boor oolin iyo wax kale waa 80 wadadan maxaa yeelay in badan waxaa lagu yareeyaa xawaaraha wadadani boor hadduu boor yaalo yani in badan waxaa loo isticmaalaa boor oo ay ku qoran tahay 60 kilometer saacadii ama zestig haddiisan boor yaalin waxaa automatically og tahay inay tahay wadadan 80 labada geesood strabe gogo'an cadaan ah sidoo kaleete baaskiil iyo waxaa doonta waa kaga imaan karaa halkaas haddii uusan boor ka mamnuucaya uusan jirin inuu orodka 80 noqdo yaa waxay noqonaya halkani 80 hadduu laakiin boor yaalo sida midka xigo kale oo boorka ay ku qoran tahay 60 ay ku qoran tahay waa 60 labadoodaba inhalen waa lagu ogol yahay labada wadoodba
in haalin wax ku diidaya ma jira in haddii aad ku socoto gaari ka horeeya aad rabto inaad ka hormarto waa lagu ogol yahay insha allah tacaala haddii aadan boorkan oo kale aadan arag in haalin waa lagu ogol yahay yacni boorkan meel walbo ku yaal macnaheedu waxay ka dhigan tahay in aadan awoodin inaad wax in haalin aad samayso ama aad isku dayda in gaari kale aad baasgarayso laguma ogola hadday noqoto waa waddada autobeka sidoo kaleeto waa waddada taktakha ahayd iyo midda lixdankaba hadduusan boorkan yaalin waxay ka dhigan tahay marka in haalin aad xor u tahay insha allah tacaala marka halkaas ayaan ku joojin doonaa insha allah cashirka maanta waana ku mahadsantiin insha allah daawashadiina kuna soo dhawaada channelka hadduu ilaahay idmo waxaan noo balan lahaa cashirka xiga hadduu ilaahay idmo asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu